بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال iyo marwooyin dhammaan asxaabta sharafta badan martida qiimaha leh waxay ii tahay farxad iyo inaan ka soo qayb galo arrinkan maanta halkan ka socda sida ragga horeba u sheegeen wixii incident-ka meesha ka dhacay waa ka wada xunnahay waxayna tilmaamaysaa gaabka waxbarasho ee nagu jiro qoladeennii macallimiinta dugsiyada farsamada ah ee macaahidda farsamada ku hayay wixii aan hayn jirnaa la tabayaa maanta inay meesha ay ka maqnaayeen waxoogaa tacliinta guud ahaan ka sokow waxbarashada waa hamiga iyo hiigsiga noloshayda maadaama aan ahay arday ama marna aan ahaa macallin waxbaridda iyo waxbarashadaba ku eegay waxaan si dhab ah ugu dharagsanahay duruufaha waxbarasho iyo qiimaha ay waxbarashadu ku fadhido xoreynta maskaxda jiilka cusub ee soo kordhaya inay maskaxda xor ka noqdaan waxaan rabaa halkaa qaabaynta mustaqbalka mujtamacaani meesha keliya ay ka suurtagalaahi waa waxbarashada hadday waxbarashada science iyo technology iyo mid social iyo mid diineed iyo mid dhaqan iyo dhammaan mid kastoo ay tahayba meesha ay ka suurtagashaahi waa habka waxbarashada haddii habka waxbarashada tooso waa laga yaabaa dadaalka maanta aan wadnahay maanta mushkiladda ugu dhagan inaan hore ka xallin laakiin mushkiladda mustaqbalka oo dhan iyo waxa dhan inaan ka gudubna ay noqon 30 sano ayaan hadda ku jirnaa jiilasha inay isbedelaana 10 sano ay isu bedeli karaan dareenkooda iyo wacyigooda la yiraa marka inaan waxbarashada xoogga saarno si mustaqbalka Soomaaliya ay u yeelato muxuu ahaay hanaan waxbarasho iyo dad waxbartay oo toosan oo maskaxda ka toosan aqliga ka toosan kana xor ah shirweynaha qaran ee waxbarashada waa guul taariikhi ah oo isu keentay dhammaan saamilayda waxbarashada ee dalka Soomaaliya oo ay ku jiraan macallimiin waalidiin bahda dugsiyada aqoon-yahanada iyo bahweynta caalamka ee taageerta deeq bixiyaasha iyo taageerada guud intaba noogu la dhinaca waxbarashada intaa kadib waxaan ku kalsoonahay in maanta shirkan la isugu yimiday oo kalsooni badan geli doono mustaqbalka iyo nidaamka waxbarashada aan hiigsanayno waxbarashadeenu waa waxbarasho wada tashi isla jaanqaad iska warqab ku salaysan mid hal meel laga yeeriye laga soo aqsumo maaha sida hadda halkan hortay looga dhawaajiyay wujuuhdii waxbarashada soo bilowday in badan oo kamid ah way joogaan wasiiradii mas'uulka ka soo noqday shirkii kan ka horeeyay kan waa kii labaad kii 2013 markii la qabtay iyo wixii ka dambeeyay maalin walba talaaba la qaaday horaa loo socday horumar la sameeyay waa dhihi karna horumar lama sameyn ma dhihi karno kuma doodi karno waxaan ku doodi karnaa ka badan aan sameyn karnay waa gaabinay aan dheerayn oo aan degdegno oo aan hor u socono waxbarashada waa xuquuq aasaasi ah oo bini aadamka dhan ay leeyihiin taas oo la'aanteed aysan jiri karin xasilooni waxbarashadu waxay sal u tahay horumarinta bini aadamka koriinkiisa iyo kor socodkiisa xagga maanka maskaxda iyo farsamada inta sidaas daraadeed waa hilinka horumarka shakhsiga ahaaneed iyo dhabaha ugu mudan ee lagu gaari karo isku filnaanshiyo dhinac walba ah waxbarashadu dadka Soomaaliyeed walaalayaal dalkeenu duruufo adag inuu muddo dheer ku soo jiray oo duruufahaasina ay qaarkood weli taagan yihiin waa dhab wax lama inkiri karo hase yeeshee ma jiraan wax ka saameyn badan marka la barbar dhigo awoodaha la tijaabiyay ee doorka waxbarashadu ku leedahay ka hortagga argagixisada caalamiga ah baridda muwaadinka muhiimadda wadaniyadda iyo midnimada dhismaha bulsho nabadeed sidoo kale waxbarashadu waxay door weyn ka qaadan kartaa
soo saaridda faca dambe ee noqonaya hogaamiyayaasha heer qaran heer gobol iyo heer caalami ee dunida intaba ee Soomaaliya ay ku leedahay mudanayaal marwooyin markii aan korayay aniga had iyo jeer abaal weyn oo aan la iloobin waxaan u hayaa ama aan ka hadlaa fursaddii aniga aan helay ee waxbarasho ee iga dhigtay qofka maanta aan ahay oo misti ilaahay uu iumay ka suko waxbarashadu shakhsiga qofka ka dhigta waa waxa uu yahay maanta iyo waayo aragnimada iyo waxa uu soo arkay iyo waxa maskaxdiisu weliba khaasatan yaraantiisii intii uu yaray weliba waxbarashadii bilaashka ahayd ee aan ka bilaabanaysay dugsiga hoose ilaa heerka labaad ee jaamacadda ka dhalinyaro ahaan anigoo ka soo jeeday bulshooyinka miyiga weliba reer miyiga ah ee dadka reer magaalka aanan ahayn aabbahay aqoon-yahan u ahay aqoon-yahan diineed u ahay waxbarashay ahayd laakiin waxbarasho ilaa iyo maanta weli aan hagaajin weynay oon systematic ka dhigi weynay ayuu kusoo waxbartay ayadana wixii hadda ka dambeeya hore saan u sheegnay waxbarashadu waa waxbarasho qofku ama diin ha barto ama science ha barto ama siyaasad ha barto ama beertacab ha bartay waxbarasho waa waxbarasho waana waxa qofka qaabeynaya oo sheebgareynaya dhan fursadaas la isiiyey aan wax ku bartay ku garaadsaday kuna koray aniga iyo qaybo badan oo bulshada ama dad badan oo akhyaarta maanta horteyda fadhiya ah fursad ayay maanta annagaa talada joogno fursadii oo kale inaan bixinno oon dhalinyarada iyo jiilasha siina ayaan rabnaa farsamo ahaan waxa la qabanayo iyo meesha aan maanta taaganahay waana loo soo sheegay waana nala tusay tira ahaan maanta ayaan aad iyo aad uga sarreynaa 30 sano ka hor dawladdu intaanay naga burburin tirada 3 jubbaar iyo in la mida ayaan joognaa hadda laakiin waxa su'aasha weyn ay ku taagan tahay waa tayada waay tayada oo casri maanta meesha ay marayso la og yahay yaan u baahnay waxa su'aasha ay ka taagan tahay maanta waa accessibility yani gaarista waxbarashada waalidka ilmi aniga agoonan ahaa hooya soo korisay aan weligeed iskuul aadin haddana maalintaas hooyaday allah u naxariistay fahamkeeda maanta dad badan oo waxbartay ayuu ka sarreeyay laana inaan waxbarano waxay u ahayday arrin oo dhimasho iyo nolol ay u ahayd way xamaashaa way ordaa way waxaysaa sida aan u noolaanayn mar kastana waxay nagu dhahdaa wax kasta kale waa idinku dul qaadanaya inaa waxbarashada ka tagtaan idinkuguma dul qaadanayo inaa waxbarashada ka hartaan idinkuma dul qaadanayo waa dhacay sanadkan wiilkaaga in la yidhaha idinkuguma dul qaadanayo inta kaleo dhan waxaad hadlaysaan waa idinkuma dul qaadan kara dareenkaasi iyo wacyiga meeshaas jooga maalintaas ee qofnimo hooyadaas Soomaaliyeed ee tuulo joogta ee maxaan kara ay lahayd maanta dad badan oo waalidiina ama malaha ama way leeyihiin fursadda ilaahay hooyada ay biriga ay heshay oo ahayday cunuga inay u diri karaan iskuul ayadoon bisha markay dhamaato lacagtii fiiga keen aan la lahayn maanta taxaddiga ama caqabada waalidka Soomaaliyeed ee danyarta ee tuulooyinkiina inta badan iskuulada ardadaas maanta la sheegay inta badan magaalooyin waaweyn iyo magaalooyinka ku xigay iyo degmooyinka ku nool yihiin tuulooyinka inta ku nool aad iyo aad u yartahay waan soo arkay hadda markii shabaab la xoreeyay kadib tuulooyinka waxa ka jira iskuul kama jiro caafimaad kama jiro dugsi quraan xataa kama jiro qof nolosha noocaas ku soo barbaaray waad garan kartaa qiimaha iyo meesha ay wax ka joogaan dalkeena halka ugu dambaysa ayuu kaga jiraa dhammaan qiimeynta caalamiga ee waxbarasho marnaba kuma faraxsanin diiwaanka noo yaal waa barmadow oo ku taala taariikhdeena iyo dib u dhac aan ku sameynay dhaqankeena waxbarasho waxaan xasuustaa in badan abwaaniinta Soomaaliyeed arintaas ka digay iyo dadka Soomaaliyeed siday u hariirayeen waxbarasho Soomaalidu dunida marka la fiiriyo
وادتك كليا لقى هيلي كرو وين أما جيل أنت وحبرت أيه وجوه الرأي هذا أنا تعليم تماشي وصل ليس كجار وين أما جبر أبيه يهو يدي أنا يولد سكول تيد هذا أما محوها أقولت وصل ليس PhD جارة أما محاكور هذا الريسيرش كا علم بارسيد جوا وين سمايا أما جامعها الدوق قوة ومعناها بدن كأه معلم بارع علم بارع هو يدي أبيه ولي سكول ما ينهدي ومضاها الدوق وما بدنا السلاح تاس مركب وحيتها على مدة عن كقاعدنا إنه هدي قفك الصومالي فرصة للسيو إنه ماشي الناس يوصل رئيس وجاري كرو سيداس درادي ومضى الصومالية مالك السوء أي جوتو يصاحب هذا عالم كأنه لا جوجاه دمانتين أنكم مشغول سيدي أن فرصة قصين لهين ويلك يركع كبرنا يركع الصومالي ده أنت المعلم كسوء هاي وحن صومري أو عمانت عن كفانا أو جوجا أو مضحة أو مسؤولين أو أقويانا وين ولا يقانا الصومالية أو أن سنة بفرصة وهلي كريم أنا فرصة أنا يرجع من صاحب هذا أن فرصة سينة ما أنت أي ترى ذلك ضدك هاي أي كمديين دقارها ضدك هاي ذلك ما أنت أي كمديين وليش نوع سهل أما أقولها هذا هو يا أبوه أما ويل يرو السم إصدري لكن هو يا أبو دروي لأن هو يدي أبي طبعا $1 بيش آخر كده هيري لهاينا ما هي السجا سحن كيسي بريسك هاينا لا تعالي يكون مشغول سراي يوللك سياسة ديننا وحبرشة دولة هدانا هاي صوماليا ويعدين كو إنا نكردينه إسقورست إسقورات كأي أرض إسقوريان وحقفك قرار مدير هذا أكسس جارتان إلا كرديو إسقولات كتيرة أرضيدا إجلس وقضب كوبان كان لبعض إن لدقن جليو وح منهج هبيسن أو وح لغو برتو وح برشو سكد دال وحكومة ديالي سيدي بالأم بعتادينا بيك محوهاي بوك حقك سوقات بيتكلا حقك سوقات معه منهج قابيسن مديسن أو لغو تلقى إنو سو سارو قف صومالي أو توصل وقضب كلابات قضب كسدحات إلا هو بيو برد تيسر له منهج واهينا سكول كي وافرين هاي معلم كي وكاني مع وحبرشة تيسر سر له معلم كميدا وأركيني ما أنت نمبر دي هل كانوا لو صار دقي معلمين تينا ما أنت وحبرشة كشخيصة أنت تببرن يا أنت أنت تببرين إن المعلم كتببرن وآليات كي وحقوف ضدين لهانه الله يهلا أنت صوت قال إيه لو هيل كرو ما أنت ما دويك أبوه وين إيه وحيابها تعلمت لقيت وتكنولوجي educational technology إن عصر عرضه وحلو فهم سيو فضط ساعدها وهيستوح بدنا نقول فهم سيكرا مركز تكنولوجي الاستعمال تكنولوجي وحبرشة وعمد كان كالله متك كلا إن الله شيء داتا يحكت يمامل كذا يسدا حكت له هريا معه سدا درادد وحبرشة سي أن سرقوا قادنا هيرك إسقورستا ويلش يقبلها يهرك الدكسيرة هوس هرك الدكسيرة هوس يصير هدي أن كبرن هاد ما أنت أنجوناهي إن كبرن 3 مليون أو دلنيارة الصوماليات أو سكول دأدي إيجاري نهاية جاري أيام وحبرشة هايسن 4 مليون واليرا 5 مليون واليرا لكن وماش هو هوسيس أنت كلاش 3 إلى 5 مليون تقول عيسو أرضي أو سكول كي جارتي قبل ولا اليرير أو جدك عرضك بيجي يا نجوم وحوق بالرئة أو باقضي اللي يرى داسي وقطر بالرئة أو ضلك يدك سوا هايستو لأن قفكي هدي أنو
maskaxdiisa aanay qaabaysnayn caqligiisu aanu qaabaysnayn garaadkiisu aanu dhisnayn waa khatar qatarahaas in badan oo ka midana waa soo aragnay waa asbaabta keentay wiil yaroo Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed oo maankeedu uu maran yahay oo waxba aanay ku jirin in lagu shubo orod isu soo qarxiyo hooyada aabbaha meesha ku jiraan soo dil jannada aad gelisaay in lagu qanciyo oo lagu shubo hadda mas'uuliyadda dawladda saaran waxay tahay maanka wiilka iyo gabadha inay wax fiican ku shubto wax san ku shubto oo maxaa mustaqbalka ay ayaguna wax isu taraan mujtamacana wax ku taraan meesha marka aan u soconahay waa quality-ga inuu noocaas noqdo quality-ga inuu boorasho furfur yaqaan oo boorasho xirxir yaqaan bas ma ogobe amuuro dhamme waxa waaye waa maanka waay wax barasho kasta oo gaartay hadii qofku aw maanka una u toosnayn wax barashadiisu nacfi badan ma yeelanayso dhawaan waxaad la socotay dadaaladaas dawladda ayadoo ay bilowday 3,000 oo macallin ayaa la qaatay dawladda Soomaaliya waxa u qorshaysan teeramkan 4 sano ah ugu yaraan 10,000 oo macallin oo wax ka dhiga iskuulaadka dawladda in la qaato waa inta ugu yar hadii kala 15 iyo 20 hadii aan gaari karnana ka sii fiican laana staff student ratio geena meesha kuma arag laakiin waa aad u hooseeya sidaas daraadeed 3,000 ugu horeysay maalmood imtixaan laga qaado Soomaaliya oo dhan loo bandhigay deegaanada oo dhan loo bandhigay meel kasta lagu qaaday inta badan dadkii soo tartameen oo hadda muxuu ah uu socdo shaqadiisa socoto mar dhow la soo cayimto 3,000 tababar la gelinaya haddana dawladdu fursad kale oo tababar ay furay inay wax bartaan sidii ay ardayda wax u bari lahaayeen iyo sidii ardayda u qaabayn lahaayeen waa bilow yar laakiin waa bilow barako waa bilow fiican maxaa la dhihi jiray waa dhibic biyaha oo badda lagu dhex riday laakiin dhibicdaasi haddaanan aqoonsan oo aanan maxaa ku faanin oo aanan la xajeclaysan badda dhanna ma aqoonsanin haddaanan dhibicdaas aqoonsan marka dhibicdaas muhiimadda ay leedahay waa muhiimaddaas dawladda priorities-keeda ugu waaweyn waxaa ka mid ah waxbarashada in la hagaajiyo waxaan rabaa halkan inaan dib ugu noqdo Soomaaliya maanta fursad ay haysataa madaxweyne bahda waxbarashada ka soo jeeda oo weligiis waxbarasho maana wax kale aan ka soo shaqeeyo ra'iisul wasaare sidoo kale oo asigana waxbarashada maana wax kale aan ka soo shaqeeyo wasiir tacliimeed oo asaguna noloshiisa dhan wuxuu yaqaanaba oo ka soo shaqeeyay tacliinta tahay hadda maanta hadii ay tacliinta Soomaaliya aan rukumada u dhigi weyno cudurdaar miyana laga aqbalaya meelaha kala gaabis waa ka keeni karnaa laakiin muddada aan haysano shaqo u qalanta iyo ka badan inaan qabanaana laga rabaa waana qabanayna mustaqbalka waxbarashada Soomaaliya aad ayuu u sareeyaa su'aashu waxay tahay marka shirweynahan qaran ee taariikhiga oo ah ka jawaabid inuu ka jawaabo ay tahay sidee ayaa nolosha dhalinyarada Soomaaliyeed u bedeli karnaa annagoo hagaajinayna mustaqbalkooda waxbarasho maxa ay tahay sida ugu wanaagsan ee labada isbeddelka iyo saameynta wanaagsan loogu yeelan karo nolosha ardayga Soomaaliyeed sidaas daraadeedna mustaqbalka bulshada Soomaaliyeed oo dhan loogu yeelan karo shirweynaha mas'alada u taala maanta oo jawaabo cad inuu ka bixiyo laga rabo kuwa farsamada gaaridda waxbarashada iyo maxaan ku raadhaa qaabeynta maamulka waxbarashada iyo maxaan ku raadhaa ka sokood waxbarashada sare sidii kor loo qaadi lahayd waxay tahay
عنصرka Soomaaliga ee mustaqbalka sidoo u ekaanaya su'aasha taagan maanta ayaanan samayn karnaa oo aan abuuri karnaa oo aan farsamadiisa ka shaqayn karnaa qofka Soomaaliga ah berri 20 sano 30 sano 50 sano ka bacdi sidoo u ekaanay dal kasta taariikhda akhri oo horumar gaaray meesha uu ka bilaabo waxay ahayd inuu isbedel ku sameeyo tacliintiisa isbedel inuu ku sameeyo nidaamka waxbarashada ayaa keentay dal kasta horumarka uu gaaray meel cidla kaba imaan inaan isbedel ku sameeyno tacliinteena qaabkeeda dhaqangalkeeda siyaasadkeeda falsafadaheeda ma aha farsamooyinkeeda kaliya waayo waxa aan ku xaqiijin karnaa mustaqbalka aan haminayno mar walba waxaan ka shaqaynaynaa oo lagu mashquulsan yahay hadafka fog ee Soomaaliya 2060 meesha ay joogi doonto vision 2060 aliraa 38 sano mise 37 sano oo hadda kadib ah Soomaaliya sidee u eegaan rabnaa inaan gaarno Soomaaliya sidee u eegaan rabnaa maalintaas in adduunyada ay la macaamisho Soomaaliyadaas maanta waaye maalintaas ma dhalanayso maanta waaye iyo wixii hadda ka horreeyay wixii la soo qabtay waxa ay ku dhalan doonto wax badan la soo qabto noo qabsoon annaan sii qurxino oo aan horay u sii wadno Soomaaliya xageeda isku taagta barwaaqo ah nabdoon dunidana ka qayb qaadata horumarkeeda dhaqaale horumarkeeda amni iyo horumarkeeda bulsho intaba waayo Soomaalida aan hiigsanayno 2060 maxay macno u leedahay qarniya ka soo wareegtay 100 sano ka soo wareegtay markaan dawlad noqonay oo aan xor noqonay santiya 30 sano kadib 2060 2090 meel aan soo joogno 30 sano kadib 2020 meel kale aan soo joognay oo jamhuuriyadda saddexaad ayaa noo quratay isku yareyn mayna markaan 30 kala dhimayna 40 sano kala 10 aan ku darsanaynaa 40 sano kala xagee joogeynaa 2060 hadii la gaaro diyaarina waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo bahda waxbarashada guud ahaan gaar ahaan wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka wasiirkeeda wasiir dawladeeda wasiir ku-xigeenkeeda iyo staafkeeda oo dhan sidoo kale waxaan rabaa inaan u bogaadiyo aad iyo aad war helaa tale sida xogta loo wadaagayo ee loo wada shaqeynayo la soo imaanayo wasiirada waxbarashada ee dawlad goboleedyada oo ah ardada dadka gacanta ku hayay siyaasadda dawladda meeshii laga xaqiijinayay inay qabsoonto ay socoto waxbarashadu aan ku dadaalno siyaasadda inaan ka ilaalino yaan la siyaasadaynin waxbarashada siyaasaddu waa nidaam mustaqbali ah aniga haddaan siyaasi ay waxaa laga rabaa ummadda waxaan berri dambe u qabanayo markay mas-uul iga dhigatay inaan sheego laakiin inaan ku mashquulo midda hadda taagan iyo waxa la soo qabtay iyo wax rag qabteen oo aan weliba si ay u kala daadan karta aan u mashquula sax ma aha siyaasaddu wax badan ay naga qarribaysaa waa furaha horta wax inay hagaajisa laga rabo laakiin sida hadda aan u haynahay wax badan ay naga qarribayo amniga aan ka dhaafo waxbarashada aan ka dhaafo adeega bulshada oo caafimaadka uu ka mid yahay aan ka dhaafo siyaasadda meesha ay leedahay aan geyn aan ku hayno laakiin yaanan la siyaasadayn waxbarashada yaanan siyaasadayn dawlad goboleedyada walaalaha ah ee dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka dadaalo badan ka socdo wasiiradooda tacliintana aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa iyo hogaankooda intaba in ay hadda diiradda ayaguna markooda ay soo saareen nidaamka waxbarashada ee dalka in taqyiir lagu sameeyo sida waxa dhan oo dhaqaale amniga ku sameeynayna dhaqaale ku sameeynayna kana ku sameeynayna waxa soo dhan ma shaqeynayaan tacliinta hadaan ku sameey kaadirka dhaqaalaha horumari lahaa amniga sugi lahaa maxaan ku yiraahdaa caafimaadka toosin lahaa haddii aanan wax soo barin intaas oo dhan gaari mayno marka muhiimadda waxbarashada ay leedahay aan siino ninkii xikmadda Wiseman ninkii xikmadda laa muxuu yiri ummata hadaad rabto inaad dumiso macallinkaa laga galaa macallinkaa la qiimi tiraa
إلى أردديس يكوكو قصش ومدها سواد دوتي أنا ما كان يرايون سكول كإلمنتري ديجانا يتولد أنجوجا نل مرهين مركز ضدك أنت ورون وحي وتنتوش كربوني وتين معلنك كربون ديسة ولا يقانا مقو حق قصص ولا يحجرني أبينك مالا دافر إنه مشاكل سنين كربون ذا معلنك وهي أنت اللي لك العرب رجل هو معلنك أفجيجا يا ما أنت هناي وأنا اللي جي ماشي هسه أنا كأنا ربنا معلنك أنا كعب صداني كعربان كل يومات وشمط من يقوها يا معلنك ولا ريال وحربها arrimaha xanuunka badan Soomaaliya inay liiska gadaal uga jirtaan sheegay waxyaabaha xanuunka badan waxa kamid ah macalinku qiimeyntii oo lahayn uma haysto wasaaradda waxbarashada waxaan farayaa siyaasad macalinka micnaha uu leeyahay kor u qaad waa rub macallimiintu aad u tiro badan yihiin dhaqaale ahaan dalkeena waa laga yaabaa inuu na gaarin inay nolosha laakiin macalinku in uu ka hooseeyo dad uu ka tacliin badan yahay وكشهادة سرية والشلي يسوي محصوبرة وأردديسي دخل يسوق على نسكس حتى معلق إنه واي معقول ماشي صحباننا وغيرنا أنا لمن ماذا عقل معلق كالصومالية نرشيس كرامديس شرفتيس أنكر وقاضين نقالها باسمها معلق احترامك وكلها المجتمع الحديث حرف قفك إبرة الدون ونقلها يعني معناها أي لا هاي معلن ماذا مهمة هذا أي تلمامي أنكروا قادنا ضمان مركلة وحام بقادنا بعض وحبرشة مدة وحبرشة جاركاي وحبرشة محواهاي بابليكا انتبه مدة برايفت كاي مدة بابليكا انتبه وحبرشة لنا سيدة ذبا ضدك عسكري هداتي صاحبك نك أضجها هل كان كهل تلمامي ganacsatada waxbarashada kalmad sax ma ah waxbarasho sideedaba dadka iska leh cunug yar oo Soomaaliyeed in la barbaariyo oo qof qurxoon oo mustaqbal laga dhigayo qiimahay guysa waxa lagu bedel karaa waxba marka waxbarashada ama gaar ha ahaato ama public ha ahaatee waxa waaye ma lahan ganacsi ma gasho mana aha mana laga gacan waxbarashada gaarka ah soo shaqeeyay muddo dheer gudub aanoonan qaadanin shilna ka soo shaqeeyay waagi dambe oo dawladdu ay naga soo burburaysan waxaan joognay mushaarka macalinka maalin iyo labo qoyska soo biilo oo aan ku filayn oo macalinka markuu iskuulka ka yimaado shaqo kala galabtii gala ilmo guri wax ugu dhig kambani kale oo shaqeey maadaama dadka wax yaqaan ay ahaayeen inta ka bax noloshiisa u qaado iskuulkiina waa aaday kama baaqan maalinna kama baaqan qiimaha ay waxbarashada u leedahay dadka noocaas ay ku tahay qalbigooda ayaa gudan kara wasaaradda waxa laga rabaa macalinka in ay sidaa ka dhigto in uu ku qanco macalinku u arko qof Soomaali ah oo wanaagsan ayuu soo saaruha wax ka weyn ma jiraan material lagu bedeli karo ma jiro laakiin waxa soo dhan waa ku soo noqonaya mar kale waxay ka go'aan waa maskaxda waay maanka waay qofka maankiisa sida loo qaabeeyay sida wax loogu sheego waay maankana mar kasta wax loo sheegi karaa intuu yar yahay uu soo koriyo waxba aad u qaado og yahay laakiin annaga waa yeelka xataa wax waa loo sheegi karaa wax waa la fahamsiin karaa aan rabnaa marka ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa waxbarasho qaabaysan soo saarta nooca dadka aan rabnaay inay Soomaaliya meesha ka amba qaado saaxiibada caalamka waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya in ugu garab istaago waxbarashada nooca waxbarashada aan rabnaa annaga aan naqaan waa leenahay karti iyo capacity aan ku aqoonsano nooca waxbarashada aan rabno أنا لو قال مايو إن أنا هلنو عروتي إنه هلنو نوع وحبرشنا عن ربنا نوع وحبرشنا ضد كلا أنفعها ياهي أنا قد ما أنفعيس نوع وحبرشنا الدنيا هم مرتي أنفعيس أنا ما أنفعيس نوع وحبرشنا ضد كلا أنا قد نقل دون إليه أنا ما أنفعيس وحيالها أسكن متك أو بين آدم وحبرشنا وحاجة النوع قف وبين آدم مركز نوع وباهي جرت
taas adduunka oo dhan baan la wadaagnaa laakiin duruufaheenna iyo dhaqankeenna iyo caqiidadeenna iyo fahamkeenna iyo mujtamaceenna midda ka jawaabaysaan rabnaa middaasna annagaa naqaan khubaradeena waa annaga aqoon-yahankeeda waa annaga nimanka naqshadeen yaqaana waa annaga waxaan rabnaa caalamku inuu nagu kaalmeeyo waxbarashada noocaas ah ee na saacidaysa ee aan suurto gelinayn soomaaliya 30 sano 40 sano 50 sano kale kadib inay haddana dunto aan suurto gelinayn inaan rabnaa taasaan rajaynaynaa in lagu saacido tuulka maanta ugu habboon shabaabka dagaalan kula jirnaa khawaarijta madaafiic iyo xabadaan isku rido haynaa laakiin tuulka madfaca ka sii habboon waa kan waxbarashada generationkaas ma aha kuwa soo baxaya ee soo socda bas inaan fursad siino inaan rabno kuwaasaan rabnaa inaan ku soo celino waddadii oo ay la qabsadaan meesha maanta aan marayno mujtamac ay kala jaan qaadaan howl aad iyo aad u culus waa xabad inay ku leedaan ma rabno xabsi inay ku leedaan ma rabno waxaan rabnaa in ay maskaxdoodii la khalday ama waxa kale lagu shubay inaan intaan ka bixino wax naafaca oo ayaguna anfaca mujtamacna anfaca inaan ku shubno waa waxbarasho kale oo nooc kale oo ayadana aad iyo aad qaali u ah waxaan rabnaa caalamku inahaasoo dhan iyo taxadiyaad ama challengeskaas ama caqabadahaasoo dhan baan hortaagan walaal dadka Soomaaliyeed laakiin waxaan leeyahay biyo sacabadaada looga dargaahay mashaakilaadkeena inaan xallino aan isku filnaan aan isku dayno inaan culayska ka yarayno caalamka 30 sano ayaa gacantana la soo hayay oo daadahana la leeyahay maanta waxaan joognaa meesha aan soco lahayn laakiin inaan socono waa inaan rabnaa haddaan marka gacanteena la deeyay aan dhulka fariisanno akhyaarta meesha joogto dhan iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.